habeennimadii xalay ilaa iyo maanta waxaa boob xoogan ka socda deegaanka Babylon ee duleedka magaalada Johannesburg iyadoo Soomaali fara badan deegaanadaasi ay ku leeyihiin dukaamo dhaca iyo boobka iyo dilka ayaa sare u kacay bilooyinkii ugu dambeeyay tan iyo markii bandow lagu soo rogay dalkan Koonfur Afrika corona awgeed ilaa iyo haatan inta la xaqiijiyay 5 wiil oo Soomaali ah ayaa siyaabo kala duwan iyadoo lagu kala dilay magaalooyinka Cape Town, Pretoria. magacaygu waa Sayid Cali Cumar Geesay meeshaana waxaan u nimid walaalaheena dukaamo ku lahaa ayaan u soo gurmanay rag badan aan ahayn iyo gaadiid badan aan wadanay meeshaana xalay waxaa ka dhacay dhibaatooyin badan dukaamana waa la boobay kuwana waa xiran yihiin oo wali lama boobin marka kuwii xirnaayaan rabnaa inaan rarno oo saas gurmadkaas aan u nimid noo qorshaysan caaway haddii qorraxdu ay dhacdo ilaa maalin caday dukaanka lama furi karo lamana rari karo haddii la rar maago waa nagu qabsanayaan waa noo jeedaan hadda horteenay dhooban yihiin marka qorraxdu dhacdaan rabnaa oo aasku madoobaado oo aan waxba loo jeedin inaan rarno dukaamada halkan aynu ku suganahay waa deegaan aad u halis badan marka aad meelaha maraysana waa lagu fiirinayaa waxaana la socda ciidamo booliis ah oo ilaalinaya dadka halkan jooga si alaabtooda dukaamada ay uga qaataan booliiska xaafadda ayaa mar horeba albaabada isugu laabay xafiisyadooda maadaama hirar muujado banaanbaxya ay hareeyeen xaafadda Babylon ee duleedka magaalada Johannesburg. qaybtan waa qaybta dambe ee dukaanka laga soo galo waxaan ku suganahay mid ka mid ah dukaamada Soomaalidu ay leeyihiin halkan waa qaybta dambe maxaa dhacay bismillaah ma soo galeen igu Cabdi Xakiin Ibrahim aadan ka mahad celinaya sida firfircoon oo walaaltinimada leh oo nagu dadaalayso thanks brother kale waa mahadsan niyo aniga Bashir Cabdisalaam Xasaan la dhahaa waxa way dukaankan waa joogay ayaantan dhan waxa way niyo meeshan problemku waa ka jiray oo waxa way location kan hortaanaga waxa way dukaamo Ethiopian ah ay leeyihiin waa la dhacay waa la boobay marka nin dhibaato weyn ku qabno askarta xitaa wadankan Koonfur Afrika dhibaatan ku qabnaa adiga hamiin saddexaad dukaanka waa noo soo jibiyeen marka albaabkii markii noo soo jibiyeen ka bacdi waxa waaye wiilal dariska oo madow kala ahaa mataqaanaan ilaahay noo soo baxshay wiilashaas xoogay naga caabiyay ka bacdina waxa waaye waa naga tageen maxamed xasan jaamac oo ku nool dalka South Africa qaasatan xaafadda Babylon waa u jeedaa dhibaatadan haysata booliskiina wax noo qaban waayay dadkii oo ka cabanaya koronto la'aantii ciidanka dawladda qabeena anaga nagula dul dhacay xalay abaara 7 fiidnimo waxay naga soo galeen 3 jiho wadada dhinac kasta waa ka xiran gurmadka waa soo gali waayay dukaanka waa u jeedaa suu yahay xaalkiisa waxaasna waxay ku dhaceen waxa waaye waa koronto la'aantaas dawladdu waa cabalayeen police station ka tagtidna waxay ku qabanayeen malahan saa arkaysa police station waa ka guuram iyo noo baneeyeenba intaas maanta fridge saddexaas fridge noo hartay laba fridge waa hal fridge oo cunay waa jibiyeen labada fridge noo hartay waa gurmadkii noogu hartay waa u jeedaa xaaladdeena see tahay dukaankii alxamdulillah wax dhimasho ma jiraan wiilashiina waa ilaahay waa ka badbaadiyay gadaal ay ka baxeen marka xaalku waa saas burcadda South Afrikaanka ayaa dhaca iyo dilka iyo boobka waxay ula kacaan siyaabo kala duwan ganacsatada Soomaalida iyo kuwa ajaanibta ee ganacsiga ku leh dalkan Koonfur Afrika biliiska Koonfur Afrika iyo waliba dawladda ayaa tallaabo ka qaadin dilalka soo noqnoqday ee Soomaalida loogu geysto iyadoo ay jiraan qaar ka mid ah burcadda markay dhac geystaan in biliiska ay soo qabtaan balse kiiska ayaa halkaasi looga haraa